أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waan salaama dhammaan asxaabteyda ku xiran baraha kala duwan ee bulshada sida TikTok, YouTube, Facebook. waxaa dhan fahanteen soo dhawaa saaxiibayaal. waxaan wadnaa ogeysiiskaas oo ah ku saabsan ereyada aan dhiibno. fahantay yani ereyadaan inta bulshada naga soo codsadaan ama anagu aan inta u hibeyno fanaan aan u dhiibno ay ku saabsan tahay barnaamijkan. waxaa dhacda inta badan tusaalahaan inta qof wax loo dhiibo in ama uu wax ka qaldo ama teemkii loogu talagalay oo la dhaafo. fahanteen marka soo dhawaada marka koowaad. inta waxaa ku jira noodkeeni waaye waa xogaa ereya inta kale way xariisan yihiin laakiin xogaa yar inta ku jirta waaye. marka waxaa jira horta sharciga jiro wuxuu yahay marka anaga ereya sameeyo ereyadaas shuruudooda waxaa kamid ah qofkaas inuusan shaqalka qaldin, habdhihidoodii, humaagtoodii, fahant waxba una ka qaldin, sideedii uga soo baxan. fahant taa markii sideedii uga soo baxana waxaa kaloo ku xiga waa in waqtiga uu soo saarayo uu noqdaa waqti 9 cisho, yani 3 bilood. 3 bilood qof la siiyey waa waqti xad dhaaf ah dhihi kara soo 9 cisho oo haysta qofka erey loo dhiibo. 9 kaas intuu kusoo saaro uu mahadsan yahay oo la shaqeey ama hadduu kala dib dhaxa Soomaan dib aan uga ceshanaynaa oo mar kale qof kale loo dhiibo ama la soo saara oo noo soo qaadayna. fahanta marka wallaan ku eeday maayo la dhihi maayo waa ereyadii ceshadeen. fahant marka sidaas la socda wax dhibi ma jiraan, laakiin waxaa jirta qof ma jirta moogta wax walba wuxuu rabaa qofkii lahaa inay meel uga soo baxaan. marka saas la ajligeeda aan sameynayna waa mahadsantii dhammaantiin. wax walba u baahan ereyo aan la soo xiriiri karno oo shuruudaha ka soo bixi kara. bilaahi tawfiiq. baraheena bulshada kala duwana waxaan leeyahay saaxiibkina waa nilaax saaxiibayaal naga soo qurxiya TikTok kala follow, YouTube ka hadduu soo koriyay isagana subscribe ku sharxa. bilaahi tawfiiq.